السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سحبت قيمة بدن كسر بهذا مقال عصب. لحد بشي ديسمبر لبكون أفري تبنكي. حلي فيدكي هور أيها بينمو. بوليسك مقالة كورتلان قبل كميسيسيبي دالك أمريكانكا أيو حال سور قليه قارين نوع راحة أو آد وقلح قبنايا ميد كميدا ودوينكي مقالة داسي. markii ay halka yimaadeen waxba ka hor timi gabar dhalinyar ah oo jirkeedo dhan holcaaya misna dhex taagan wadada weyn ee gawaarida ay marayaan xaaladda ay ku sugneed gabadhan yar ma ahayn mid fudud 98% jirkeeda oo dhan wuxuu ahaa mid si xun u gubtay waxa kale oo dhaawac aad u daran uu ka soo gaaray xagga dhuunta carabka ilaa sanbabaha taa oo sababkeedana uu ahaa kadib markii holaca dabkii uu gudaha u galay jirkeeda waxana markiiba qoladii gargaarka ay gabadhan ula carareen isbitaal ku yaala magaalada Memphis ee gobolka Tennessee halka oo ay nasiib daro ku nafweyn doonto maalinkii xigay raggii baarayay goobtii uu dhibkaasi ka dhacay iyo gaariga gabadhan ayaa waxa dareenkooda si fiican u soo jiitay in passenger seatka ama kursiga labaad ee shirka hore gaariga ku yaala uu isaga oo dhan gadaal u jiifay sida in uu gabadhan gaariga la saarnaa qof kale misna ay u muuqatay in qofkaasi uu ka dhuumanayay in la arko sidoo kale furaha gaarigii gabadhan waxa laga soo helay meel xogaha u jirta goobta ay gabadhan ku gubanaysay taasoo shaki aad u weyn ku beeray dambi baariyaasha maadaama ay ula muuqatay misna ay aad uga shakiyeen in qofkii gaariga la saarnaa gabadhan uu ka dambeeyay gubada gabadhan misna aynan ahayn sida markii hore ay moodeen ee ahaa in uu gaariga dab ka kacay misna taa ay keentay in gabadhan ay gubato markii ay isku dayeen in gabadhan ay wax ka weydiiyaan sida ay wax u dhaceen marka hore gabadhan yar ma ahayn mid awooda in ay si fiican u hadasho balse nasiib wanaag waxa jiray su'aalo yar oo si gaaban ay kaga jawaabtay su'aasha ugu muhiimsanna ay ahayd yaa sidan ku galay taa oo ay ku jawaabtay wax u eg Eric ama Derek gabadhan uu dhibka foosho xun qabsaday waxay ahayd 19 jir lagu magacaabo Jessica Chambers gabar yar oo weli ku jirta waxbarashada dugsiga sare kuna hamin jirtay in mar un ay noqon doonto dhaqtarad Jessica waxay qayb ka ahayd gabdhaha cheerleaderska loo yaqaano ee dhiirigeliya mid kamid ah kooxaha ka dhisan iskuulkeeda waxay kaloo inta fursadda ay leedahay ka shaqeyn jirtay carwo lagu iibiyo dharka oo ku tiilay meel aan sida uga fogeyn xaafadooda shakhsiyad ahaan waxay ahayd gabar si fiican looga dhex yaqaano xaafadda ay ku nooshahay ilaa iskuulkeeda misna aad loo jecel yahay sida la sheego taasoo keentay in qof kasta uu isweydiiyo qof sidee ah ayaa damcaya in uu Jessica dilo maxaase keeni kara oo ku dhiirigeliyay qofkaasi in uu gabadhan yar gubo si loo ogaado jawaabaha su'aalahaasina qoladii dambi baariyaashu waxa u furnaa oo kaliya hal wado oo ah in ay dib u tixraacaan dhaqdhaqaaqyadii iyo mobilkii gabadhan laga soo bilaabo dadka ay la sheekaysan jirtay ilaa GPS-ka telefoonkeeda si ay u ogaadaan meel kasta oo ay tagtay waxa intii ay xog aruurinta ku jireen u soo baxday in Jessica subax maalinkii ay dhacdadan qabsan doonto la joogtay qaar kamid ah saaxiibadeeda xilli duhuradii kadibna waxay dib ugu soo laabatay guriga hooyadeed iyadoo sida ay hooyadeed xaqiijisayba wax yar seexatay ilaa laga gaarayo galabkii markii ay hurdada ka soo kacday kadibna waxay hooyadeed u sheegtay in ay wax soo iibsan rabto sidoo kale gaarigana ay labaajo geyn rabto si loogu soo dhaqo oo loogu soo nadiifiyo gurigii ayayna sidii kaga baxday galabkii muuqaal yar oo ay duubtay kaamira ku xirnayd kaalin shidaal oo ku tiilay meel 2 kiiloomitir u jirta goobtii Jessica lagu gubay ayaa waxay duubtay Jessica oo nabad qabta 11 iyo bar galabnimo shidaal ayay ku shubatay gaarigeedii deedna wax yar oo kooban ayay la hadashay qof kaamirada aan laga arkaynin lamana oga ilaa hadda qofkaasi cid uu yahay kadibna waxay gudaha u gashay qaybtii laga maamulayay kaalinta shidaal si ay isaga soo bixiso lacagtii shidaalka sida muuqaalkaba laga arki karo Jessica uma muuqan in qof uu la socdo oo waxay ahayd kaligeeda kadib markii ay kaalintii shidaal ka tagtayna waxa GPS-ka mobilkeeda laga arkay in ay aaday magaalada Batesville magaalo yar oo daris la ah meeshii ay degneyd ee Cortland waxa meeshaasi ay ka doontayna lama oga oo cid ay meeshaasi ka taqiinay ma jirin saacad iyo xoogaha kadibna waxay dib ugu soo laabatay magaaladii ay degneed waana tii markii dambe ay booliiska ugu tageen iyadoo wadada ku dhex gubanaysa qofkii ugu horeeyay ee looga shakiyo in kiiskan uu ku lug leeyahay wuxuu ahaa Jessica jaceylkeeda ama saaxiibkeeda Travis balse isaga markii booliiska waa laga saaray maadaama maalinkii dhacdadan ay qabsanaysay gabadhan uu ku jiray xabsi inkastoo aan la sheegin sababka uu u xirnaa haddana waxay u badan tahay in qoladii taraafikada ay xireen maalin ka hor markii uu khilaafay sharciga wadada sidoo kale markii ay dambi baariyaashu dib u tixraac ku sameeyeen magacii ay Jessica la wadaagtay ee ahaa Eric ama Derek waxay gabi ahaanba heli waayeen qof leh magacaasi oo xiriir kala dhaxeeya Jessica laga soo bilaabo iskuulkeedii ilaa xaafadii oo dhan sidoo kale xitaa markii ay baareen telefoonkeedii ma jirin qof magacaasi leh oo ay la xiriiri jirtay taa oo keentay inay isna dhinac iska dhigaan
balse intii ay ku jireen baaritaanka teleefonkeeda waxa dambibaarayaasha u soo baxay qof kale oo ay aad uga shakiyeen wiil lagu magacaabo Quinton Tellis oo muddo aad u yar ay isla wada hadlayeen Jessica qoraaladii dhex maray markii ay dib u raaceen waxa u soo baxday sidan Quinton wuxuu degnaa xaafad aad ugu dhow midii Jessica labadooduna waxay isbarteen 2 isbuuc ka hor inta dhacdadan aysan dhicin oo sheekadooda oo dhan waxay ahayd mid bilow ah Jessica iyo Quinton waxa markii ugu horeysay ay wada xiriireen 29 November 2014 marka ay 4 maalin wada hadleen ayaa Quinton wuxuu bilaabay in gabadhii yareed uu xoogaha ku soo fido misna uu weydiiyo in ay waqti la qaadato oo ay maxaan ku yiraahdaa isla seexdaan taa oo ay ka diiday Jessica 2 maalmood kadib 5 December 2014 Jessica ayaa Quinton weydiisatay in uu deemiyo lacag yar oo adiga $6 ah wuxuuna markiiba isku dayay in uu ka faa'iideysto dalabkeeda isagoo mar kale weydiiyay in ay la seexato taa oo keentay in Jessica ay haddana ka diido marka la gaaray December 6deeda oo ahayd maalinkii Jessica ay guban doonto waxay barqadii maalinkaasi qoraal u dirtay Quinton iyadoo u sheegaysa waxaan ahay diyaar kadibna waxay aaday gurigiisa iyagoo meeshii iska raacay magaaladiina isaga soo socday muddo 40 daqiiqo kadibna Quinton wuxuu ugu dambeyn kaga haray Jessica meel aan xaafadiisa sida uga fogeen wax yar kadib 5 saac iyo 5 daqiiqo duhurkii ah ayaa haddana wuxuu u soo diray qoraal uu ku leeyahay I need you waan ku baahanahay ayadana waxay ugu jawaabtay maxaad iiga baahan tahay taa oo Quinton uu ku soo jawaab celiyay wax yar oo jacayla taasoo ay iyadana ugu jawaabtay oh my gosh ma ku sameyn kari markii dambibaarayaashu ay isku dayeen in Quinton ay wax ka weydiiyaan Jessica iyo wixii ku dhacay hadii uu wax ka og yahay wuxuu ku andacooday in isaga iyo Jessica ay is arkeen oo kaliya subaxii uu dib ka dhacay markaana ay ugu dambeysay ayadoo dhan galabkii iyo habeenkii intiisi horena wuxuu sheegay in uu jiray magaalada Pettisville waa isla magaaladii ay xiligaasi aaday Jessica balse wuxuu yiri anigu waxaan halkaasi u aaday saan u soo adeegto mana arag Jessica wuxuu kaloo intaasi ku sii daray habeenka intiisi kale ee hartayna يعني markii uu dib uga soo laabtay Pettisville in uu la joogay saaxiibadiisa oo uu waqti la qaadanayay iyaga balse waxa soo dhan waxay ahaayeen kuwa been ah oo markii saaxiibadiisa la weydiiyay waxay sheegeen in Quinton uu habeenkaasi ayaga la joogin misna aysan aragba oo habeenkii ayaga ay aadeen garoon ciyaaraha lagu daawado taasoo run noqotay markii dib loo xaqiijiyay oo wiilashaasi kaligooda ayaa tagay garoonkaasi markii Quinton laga horgeeyay arinkan oo ahaa in saaxiibadiisa ay iska diideen wuxuu bilaabay in uu sheekadii dhan bedelo wuxuu la yimid sheeko kale isagoo raggii dambibaarayaasha u sheegay in Jessica iyo asaga ay fiidkii hore isku raaceen maqaayad ku taala magaalada Pettisville si ay iskula soo casheeyaan kadibna waxay dib ugu soo laabteen gurigiisa halkaas oo ay xoogaha wada joogeen ugu dambeynna 1 saac fiidkii ay ka soo tagtay gurigiisa markaasna ay ugu wardambeysay ayadoo dhan taasoo mar kale ku cadaatay in ay beentiisa tahay maadaama qoladii dambibaarayaashu ay GPS-ka telefoonkii Jessica iyo telefoonkiisa ay ka arkeen in Jessica ay 1 saac iyo bar kasoo tagtay gurigiisa daqiiqadii yar kadibna waa tii dhibka qabsaday gabadhan maadaama waqti aad u yar uu u dhaxeeyay markii ay isaga la joogtay iyo markii uu dabka qabsaday gabadhan waxa mid aad looga shakiyo noqotay in qof kale oo asaga ahayn uu sidan yeelo gabadhan ma ahayn mid la aamini karay in Quinton uusan ahayn qofkii dabka qabadsiiyay Jessica waxaana cadeen uga filnaa in DNA-ga farihiisa laga soo helay furihii gaariga Jessica oo saan hore u soo sheegnay lagu tuuray meel xoogaha u jirtay meeshii lagu gubay gabadhan oo hadiiba dib loo raacay ku beegneed guri ay degneed Quinton walaashiisa lana arkay habeenkaasi Quinton oo gurigii walaashiisa ka soo baxaya kadib markii ay Jessica waxaan oo dhan ku dhaceen taa waxa kaaga sii daran 1 saac kadib markii Jessica isbitaalka loo qaaday wuxuu iska diladgareeyay dhammaan sheekooyinkii dhaxmaray labadooda iyo lambarkeeda dib dambe oo lama soo hadlin habeenkaasi ileen wuxuu og yahay wixii ku dhacay markii la weydiiyay sababka uu sidan u sameeyayna wuxuu ku yiri ma rabin in la xiriiriyo dilkeeda inkastoo qareenadii u doodayay Quinton ay ku andacoodeen in Quinton uusan ku lug lahayn wixii ku dhacay gabadhan misna qofka gabadhaasi sidaasi u galay uu ahaa qofkii ay iyada afka ka sheegtay Eric ama Derek haddana runta marka laga hadlo ma la iska indhatiri karo Quinton iyo sheekooyinkiisa yani la isku qasqasaayo xitaa markii dib loo raaco noloshiisa Jessica ma aha qofka kaliya ee looga shakisan yahay in uu isaga ku lug leeyahay dilkeeda waxa jirtay gabar 34 jir ah oo lagu magacaabo Minjen Hesao subhanallah ina saxaarjeena magacaasi ama sida saaxiibadeeda ay ugu wici jireen loo yaqiinay Mandy oo iyadu meedkeedii laga soo dhaxelay apartmenti ay degneed meedkii Mandy ayaa waxa la heli doonaa iyadoo aad loo jir dilay ku dhawaad 30 jeerna lagu dhuftay midi
kadib markii dib loo raacay meelihii ay tagtay ka hor inta uusan dhibkan ku dhicinna waxa booliiskii ay soo heleen muuqaal ay duubtay kaamiro ku xirnayd supermarketka Walmart oo ay arkeen Mandy oo la adeeganaysa Quinton. kadibna markii ay adeegooda soo dhameysteen ay iyagoo isla socda ka soo baxeen supermarketkii. maalin kadibna waa tii Mandy lagu dhex dilay apartmentigeeda. sidoo kale qoladii kiiskeeda baarayay ayaa waxaa markii dambe ay soo ogaadeen in qaar ka mid ah alaabtii Mandy ay maqan tahay sida Mastercard-keeda. markii ay dib u tixraaceenna waxayba soo ogaadeen in Mastercard-keedii la isticmaalay dhowr jeer oo lacag lagala baxay markii la dilay kadib. qofka lacagtii kala baxayna wuxuu ahaa isla Quinton. waxaa ku caddaatay in ku dhowaad 5 mar oo kala duwan oo Quinton lacag kala baxay Mastercard-keeda, balse markii qoladii kiiska gabadhan baarayay ay wax ka weydiiyeen Quinton wuxuu ku candacooday in Mastercard-kan uu ka keenay ama uu ka soo iibsaday nin daraagiska ka ganacsada oo magaciisa uu ku sheegay Jay. maalmo kadibna haddana mar kale sheekadii wuu bedelay, wuxuuna sheegay in Mastercard-kan uu ka soo qaatay nin lagu magacaabo Kenny. taa oo micnaheedu ay tahay in Quinton uu iska fogeynayay dilkii loo geystay Mandy, misna uu rabo in uu dadka ka dhaadhiciyo in Mandy uu isaga dilin ee rag kale ay dileen. Mastercard-kana ay iyaga ka soo qaateen kadibna uu asaga ka iibsaday, kana warhaynin in Mastercard-kan uu yahay midkii Mandy. waana magaceeda ayaa ku dul qoran niyada ku hay. almuhim haddaan dib ugu laabano kiiska Jessica, Quinton ilaa haddeer wuxuu sugayaa xukunkii kama dambaysta ahaa ee ay maxkamaddu ku xukumi doonto. dhowr jeer oo maxkamaddii la soo hor istaajiyey waxaa lagu kala tagay bilaa xukun kama dambays ah. kiiskan waa mid ka mid ah kiisaska iska caddahay cidda dembiga gashay misna geysatay falkan. bilaa shaki waxaa hubaal ah in Quinton uu ka dambeeyay dilkii Jessica misna uu isaga gubay. anigu ahaan waxay iigu muuqataa in kadib markii Quinton uu dhowr jeer isku dayay inuu gabadhan gogol dhaaf la sameeyo, wax walbana uu u sameeyey si uu ugu qancin lahaa, sida in uu cashak u kaxeeyo, balse ugu dambeyn ay ka diiday xanaaq dartii inuu damcay inuu kaga takhaluso ayadoo dhan, misna uu sidii ula yimid qorshaha ah inuu gubo. markii ay gurigiisii ka soo tageenna uu wadada dhexdeeda ku gubay si hadhow aanba isaga looga shakin oo loogu maleeyo in gaarigeeda uu dab ka kacay sidiina ay ku gubatay. dhanka kale waxa laga yaabaa in dad badan ay isweydiinayaan bal ka waran magacii ay iyada afkeeda ka sheegtay oo ahaa in qofka sidan u galay uu yahay Eric ama Derek. maadaama Quinton iyo Jessica ay muddo aad u yar isqiineen, waxay ila tahay in Quinton uu Jessica u sheegay in magaciisa la yiraahdo Eric ama Derek. way dhacdaa anagaba waan aragnay in qof marka hore magac been ah la isku baro kadibna muddo marka la isla socdo aad ogaato ama magaciisa saxda ah lagu sheego. sheekada Jessica waxay qayb ka tahay boqolaalka dhacdo ee qabsata dad marka hore la isaga dhigay in la jecel yahay, balse markii laga waayo danihii laga lahaa oo dhan lagula kaco falal arxan dari ah. gubistana ay tahay waxa ugu dhow ee lagu sameyn karo, sida dhacdadii foosha xumeed ee wiilkii dhalinyarta ahaa David Scott ay ku dhigtay xaaskiisa. haddii aadan hore u daawan sheekadiisa, halkan ku dhufo waa hubaal in ay ku cajibin doonto.